oo idinka imanaya stuudiyaha iyaga magaalada London. maxkamadda sare ee dalka Mareykanka ayaa salaasadii maanta ahayd waxa ay ku raacday maamulka madaxweyne Donald Trump go'aan ay hore u soo saareen oo ahaa in dadka markaasi qaata kaalmooyinka dawladda aan la siinin ruqsadaha rasmi ah loogu dago dalka Mareykanka ee loo yaqaan green card-ka. taasoo ay dad fara badan oo muhaajiriinta cusub ka qaataan dalka Mareykanka oo Soomaaliduna ay ka mid yihiin. maxkamaddu waxa ay sheegtay in go'aankama dambaysa ay ka gaari doonto arrintaasi oo ilaa inta ay xeer ku soo baxayso. go'aanka ay maxkamaddu gaadhay ayaa dawladdu ay u cuskan karaysaa markaasi in sharciga green card-ka loo yaqaano loogu diido dadka iyagu qaata kaalmooyinka ay ka mid yihiin kuwa cunnada lagu iibsado iyo kuwa caymiska dawladdu ay bixiso iyo kuwa dadka kirooyinka lagaga caawiyaba. xeerkan oo weli sabka kama dambaysa aan u meel marin ayaa waxa uu markay uu soo baxayba ka soo horjeestay kooxaha u dooda xuquuqda dadka dhawaanahan u soo haajiray waddanka Mareykanka.